بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo bishu ay tahay 8 oo ay khamiis tahay bisha 8aad 2019 shirkii golaha wasiirada ee dawladda Puntland ayaa qabsoomay waxa shir gudoomiyay madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani iyadoo uu goobjoog ahaa madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash arrimo dhowr ah ayaa shirka looga hadlay ugu horeyn madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dawladda iyo shacabka uga mahad celiyay doorkii iyo sidii isku duubnida ay uga qayb qaateen toddobaadka Puntland iyo xuska 1 August sanad guuradii 12aad ee ka soo wareegatay markii la aasaasay Puntland madaxweynuhu waxa uu shacabka uu sheegay iyo dawladduba inay muujiyeen isku duubni waxaana uu dhammaan cid kasta oo door ku lahayd iyo gudiyadii shaqeeyay uga mahad celiyay kaalintii muhiimka ahayd taariikhiga ahayd ay ka qayb qaateen xuska taariikhiga golaha ayaa markii hore waxa uu kulankiisa ku bilaabay dib u fuurin uu ku fiiriyay qodobadii ka soo baxay shirkii hore ee golaha wasiirada waxyaabaha ka qabsoomay iyo waxyaabaha aan qabsoomin waxa kadibna loo gudbay in warbixin laga dhageysto gudi hoosaadka tayeynta adeegyada bulshada iyo kaabayaasha iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee dawladda waxaana gudida ay soo gudbisay qorshayaasha u qabsoomay gaar ahaan shirarkii ay yeesheen waxyaabihii ay ka wada hadleen iyo ajandaha ay samaysteen kadibna waxa ay sidoo kale ay golaha la wadaageen xog kooban oo ku saabsan caqabadaha qorshayaasha iyo tala soo jeedinta wasaaradaha gudidaasi ay ku midaysan yihiin intaasi kadib golaha wasiirada ee dawladda Puntland waxa la hor keenay xeerka maalgashiga oo isagana loo diyaarinayo in la dhameystiro ka hor intaan la gaarin shirka maalgashiga oo qorshuhu yahay in la qabto 15 ilaa 17 bisha September ee soo socota waxaana la isla gartay in xeerkaasi oo dhameystiran dib golaha loogu soo celiyo kulamada dambe lagana faa'iideysto fursadda la haysto ka hor intaan shirku bixin si xeerkaasi loo dhameystiro golaha waxa ay wasaaradda maaliyadda isku soo gudbisay soo jeedin ku saabsan wax ka bedel lagu sameeyo cashuurta dakhliga shaqaalaha aan dawliga ahayn ee ka howlgala Puntland waxaana golahu ay dood kadib ay ansixiyeen oo isku raaceen in wax ka bedel lagu sameeyo cashuurta ee laga qaado shaqaalaha aan dawliga ahayn ee ka howlgala Puntland shirku waxa uu ahaa mid intiisa badan xooga sidoo kale lagu saaray sidii dhalinyarada fursad shaqo loogu sameyn lahaa oo aad looga dooday shaqo abuurka iyo in dhalinyaradu ay helaan aqoon xirfad ay ku bartaan xirfadaas ay ku shaqeystaan madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa faray dhammaan golayaasha in kala duwan ee dawladdu in ay door muhiim ah ay ka qaataan sidii wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha looga shaqeyn lahaa in dhalinyarada